الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم. najmigii suuraddii lagu magacaabay ayaan meeshan ka gudagelaynaa, ama suuratu najmi xidigihii suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay ku soo degtay, wa aayaatuha aayadaheeduna isnataani wa situuna aaya, waxay noqonaysaa 62 aayadood. waxay kaloo noqonaysaa 360 kelimo ayay suuraddan noqonaysaa. waxay kaloo noqonaysaa 1405 xarafna way noqonaysaa. suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratu najmi. waa suuraddii 53aad oo ka mid ah qur'aanka kariimka. suuraddan waa suurad makiya sidaas siyaaqeeda laga garanahayo. waxay ka waramaysaa hadday mar tahay suurad makiya, usuulul caqiida ayaa looga waramahayaa. aayado dhowra oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ka waramahaya. annubuwa warisaala ayaa lagu sheegi doonaa suuraddatan. baxsigii iyo qiyaamihii iyo ahwaalaheeda ayaa suuraddatan looga waramahayaa. marka suuraddatan waa suurad makiya sida aan soo sheegnay. ayada iyo suuradda waxaa weeye ka horeysay ee la yidhaahdo suuratu duuri. munaasabo ayaa markaas ka dhaxaysa. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, wasbir lixukmi rabbika fa innaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum wa min alleyli fasabbixu idbaara annujuum. oo waxa weeye suuradda aakhirkeeda ayaa waxaa lagu sheegay nujuum. suuradda tan awalkeedana waxaa lagu sheegay nujuum. marka sidaas ayaa labada suuradood waxaa uga dhexeeya munaasabo ayaa uga dhexaysa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku dhaaranahayaa najmigaas ayuu ku dhaaranhayaa alla subxaanahu wa tacaala, ama nujuum oo la jimciyey. waxaa la yidhi marka nujuumtaas waxaa loola jeedaa xidigahan oo la yidhaahda shucurada. shucra ayaa loola jeedaa, ama zuhraha, ama xidigan la yidhaahda mushtarka ama mariiqa ayaa loola jeedaa, ama xidigaha dhammaantood ayaa loola jeedaa. bacdi culummada ka mida waxay yidhahdeen dayaxa ayaa loola jeedaa. xidigaha lixaha la yidhaahdo soomaaliduna ay u taqaanto ururta ayaa loola jeedaa.
qaar qur-aanka ka mid a culummada waxay dhaheen qur-aanka ayaa loola jeedaa, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa loola jeedaa, oo waa mucjisadii nebiga ayaa la yidhi nejmigan ayaa loola jeedaa. waxaana arrinkaas xoojinahaya xadiiskii ibnu jawsi ayaa uu kitaabkiisa ku qoray ee abaa hureyre uu warinahayey ayaa u daliila arrinkaasna in loola jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam. marka si kastaba ha ahaatee ibnu jawsi wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxaa isku yimid jibriil ayaa sheekaystay. markii ay sheekaysteen jibriil iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil uu ku yidhi, jibriilow meeqa sano ayaa jirtaa? jibriil wuxuu yidhi, aniga inta aan jiro ma garanahayo nebi moxamedow, laakiin waxaa jira arrin aan ku garanahayo inta aan jiro ayaa jira. markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu su'aalayna, jibriil wuxuu yidhi, xidig ayaa soo dhashaa oo halkaas qoraxdu ka soo baxdo ka soo dhashaa. xidigaas aniga waxaan arkay ayuu leeyahay 70,000 oo sano ayaan xidigaas arkahayey. 72,000 oo sano ayaan xidigaas arkahayey buu yidhi. 70,000 oo sano maahan, 72,000 oo sano ayaan xidigaas arkahayey. 70,000 oo sanona hal mar ayuu soo dhashaa. yacni waxa weeye jibriil marka wuxuu yidhi 40 milyan iyo wax ka badan weeye. markaas ayuu leeyahay xisaabaha haddii la isku dardaro 40 milyan iyo wax ka badan, oo aniga intaasaan jiraa marka weeye. marka xadiiska yacni hadda nama horyaal, oo waxa weeye intaas ayaan uga gaabsanaynaa. waxaan u soo qaatay nejmigaas ama nujuumtaas oo xidigahaas lagu dhaaranhayo inay nujuum ay yihiinna ashaa jinsiyada ayaa ku caddaynaysa markaas. waayahay ilaahi subxaanahu wa tacaala marka wuxuu yidhi, wannajmi xidigii ayaan ku dhaartuu yidhi ilaahay, idaa waqtigii hawa uu hoobto. waa markii uu dhacahayo ee meeshii uu u dhici jiray uu u hoobto ayaa loola jeedaa markaas. culammada marka waxay dhaheen waa xidigaha kan loo yaqaan ee lixah ama ururta loo yaqaanoo waxaa weeye 6 marka waxaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xidigahaas wuxuu ka arki jiray 11 ayuu ka arki jiray markaas. wannajmi xidigii baan ku dhaartay buu yidhi ilaahay, idaa hawaa markii uu hoobto markaas. oo waxay ka dhigan tahay waayahay walqur'aani qur'aankii ayaan ku dhaartay idaa nazala markii uu soo degay. qur'aanka kariimka markii uu soo degay ayaan ku dhaartay. laakiin hadda waxaa loola jeedo waa xidigaas weeye. idaa hawaa idaa saqadat markaas weeye, markii uu dhaco ayaan ku dhaartay. maa dalla ma uusan lumin saaxibukum saaxiibkiin oo nebi moxameda ma uusan lumin, wamaa qawaa mana uusan baadi dheehin. maa dalla ma uusan lumin saaxibukum saaxiibkiin oo nebi moxameda ma uusan lumin. yaa macshara alquraysh quraysh jamiicadeediiyey, nebiga calayhi salaatu wasalaam can dariiqilmustaqiimi dariiqa toosan kama uusan lumin. wamaa qawaa
mana uusan baadi dheehinoo nebigu baadi ma noqon. maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hanuun iyo rashiid ayuu ku sugnaa. wamaa yandiqu mana uusan dhawaaqin buu leeyahay canil hawaa hawadiisa kama uusan dhawaaqin. maa yatakallamu bilqur'aani can hawaa nafsihi wa can ra'yi aslan. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi wax allaale iyo wixii uu ku hadlo waxaa weeye waxay ahaayeen oo uu naftiisa uga hadlo oo ra'yiya waxaa weeye waxyi minallaahi tacaala ah ayuu ahaa markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wamaa yandiqu mana uusan waayahay ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa yandiqu ma uusan dhawaaqayn nebigu canil hawaa hawadiisa kama dhawaaqayn oo hawadiisa mid ka dhawaaqahaya ma ahayn. in huwa maa huwa ma uusan ahaanin ilaa waxyun waxyi mooye waxyigaasoo yuuxaa loo waxyooday. nabiga calayhi salaatu wasalaam qur'aankii ku soo degahayey ayuu ilaahay nooga warramahaya. in huwa maa huwa ma ahaanin buu yidhi ilaahay ilaa waxyun waxyi mooye waxyigaasoo yuuxaa loo waxyooday. malqur'aanu ilaa waxyun min allaahi yuuxaa. qur'aankuna wuxuu ahaa waxyi oo minallaahi tacaalaa ilaahay xaggiis nebiga looga waxyoonayay ayuu ahaa. callamahu buu yidhi ilaahay waxaa barbaray hu oo qur'aanka nebiga waxaa barbarahayey shadiidul quwaa quwo mid u saaxiiba ayaa barbarahayey. shadiidul quwaa ee dii quwatin quwo mid u saaxiiba ayaa barbarahayey. callama nebiya nebiga waxaa barbaray alwaxyu waxyiga waayahay waa sifatun mawsuufun maxduufun weeyo waxaad soo qadaraysaa callamahu waxaa barbaray nebiga malakun malag ayaa barbaray malagaasoo shadiidul quwa xoog u saaxiiba markaas weeye ayaa barbaray wahuwa jibriilu calayhi salaam ayaa loola jeedaay. jibriil ayaa barhayay markaas weeye malagaasoo duu miratin buu yidhi ilaahay waxaa weeye mandar u saaxiiba wanaagsan. fastawaa wuu ekaaday buu yidhi ilaahay haddana jibriil wuu ekaaday oo waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ku sugnaa qaaru xiraa ee qur'aanka kariimka uu ku bilowday soo degiddiisa waa tii waxaa weeye axaadiis fara badan looga warramayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii argagaxay baa layidhi oo miiraabay ama miyir daboolmay. jibriil ayaa u soo dhowaaday baa la yidhi oo waxa weeye gacanta marmariyoo salaaxay. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo miyirsaday markaas. jibriil marka wuxuu yidhi quwadii ilaahay i siiyey ayaan ku tusayaa buu yidhi oo halkaa waxa weeye samadaa ayuu inta tegay ayuu wuxuu la baxay 2 garab ayuu la baxay markaas. halkii garabba waxaa la yidhi maqrib iyo maqshib inta meesha qoraxdu u dhacdo iyo meesha qoraxdu ka soo baxdo ayuu la eg yahay markaas. marka waxa weeye nebigu wuxuu yidhi maxaa ka weynan badan oo shaygan inta uu la eg yahay. malagu jibriilna wuxuu yidhi markaas ilaahay waxaa weeye axad uu abuuray ayaa jiro asraafiil la yidhaahdo waxaa weeye 600 oo garab leh. halkii garabna uu la eg yahay 2 garab oo garbahayga ka mida ayuu halkii garabna la eg yahay markaas. jibriil asaguna wuxuu leeyahay 600 oo garab buu leeyahay. waxaa kaloo la wariyey malaga casraafiil ee nafta qaada asagana waxaa weeye in uu leeyahay garbo
asna uu leeyahay. quwadiisa waxaa la sheegay madaxiisa inuu joogo ilaahay carshigiisa agtiisa, lugihiisuna ay yaaliin 7 arla ka hoos. quwada ilaahay siiyaa marka iyo weynanka ilaahay siiyey ayaa intaas la eg markaas. marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, waayahay callamahu nebiga waxaa barbaray, waayahay callama nabiyu lwaxyu nebiga qur-aanka waxaa barbaray malakun malag u soo qadar, malag ayaa baray, malaggaasoo shadiidul quwaa oo waxaa weeye quwadiisu ay weyn tahay, adag tahay. malaggaasoo duu miratin oo waxaa weeye mandar u saaxiiba. fastawaa wuuna ekaaday markaas, jibriil wuu ekaado calaa suuratihil waxaa weeye xaqiiqiya allatii khalaqahu llaahu tacaalaa, suuraddii ilaahay uu ku abuuray ayuu ku ekaaday markaas weeye. wal xaal ayuu nebigu arkay huwa asagu jibriil bil ufuqi jihadii uu ku sugan yahay, jihadii al aclaa ee saraysay markaas weeye. waa halkaas samadaa ayuu ku arka markaas weeye. waaya suma danaa jibriil waxaa weeye wuu soo dhowaaday, fatadallaa wuu dhowaansho siyaadiyey markaas. waa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu miiraamay markaas, ama uu miir daboolmay, ayuu jibriil soo dhowaaday, dhowaanshihana wuu siyaadiyey. ilaahay wuxuu yidhi, wa huwa asagu wal xaal ayuu nebigu arkay jibriil bil ufuqi jihadii jibriil uu ku sugan yahay, jihadii day al aclaa ee saraysay. suma danaa jibriil wuu soo dhowaaday, fatadallaa wuu dhowaansho siyaadiyeyoo yaa aad buu nebiga ugu soo dhowaaday markaas. fatadallaa wuu dhowaansho siyaadiyey, fa kaana wuxuu nebiga u ahaaday qaaba qawsayni, qadra qawsayni, qaansada labadeeda qorqor, ow amase adnaa wax ka dhow ayuu ahaadaa markaas. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa, suma danaa jibriil wuu soo dhowaaday buu yidhi ilaahay, fatadallaa wuuna dhowaansho siyaadiyey, fa kaana wuxuu ahaaday jibriil qaaba qawsayni, qadra qawsayni, qaansada labadeeda qorqor ayuu ahaaday, ow amase adnaa wax ka dhow. waxaa loola jeedaa wuxuu ahaaday qaansada waxaa loola jeedaa baa la yidhi labadeeda qorqor, labada meelood ee xarigga looga xiro, ee inta la qoro xariggu inuusan ka furan loogu talagalay, labadaas ayuu ahaaday markaas. intaa in u jirta oo xariggu ku xiran yahay iyo wax uga dhow ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo jirsaday markaas. fa awxaa alla wuu u waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisii oo jibriil ahaa, maa ayuu u waxyooda oo waxaa jibriil uu u waxyooday ilaa muxammadin nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama, shaygii uu u waxyooday ayuu ilaahay jibriil u waxyooday. fa awxaa alla wuu u waxyooday buu yiri ilaahay ilaa cabdihi addoonkiisii ayuu ilaahay u waxyooday oo jibriil ahaa, maa awxaa wixii uu u waxyooday oo waxaa weeye ayuu nebi maxamed u waxyooday. marka hadda waxaa la yidhi shaygii uu u waxyooday, shaygaa lama sheegin baa la yidhi tacdiiman lisha'nihi, shaygaa sha'nigiisa oo la weyneynhaya darteed ayaan loo sheegin. haddana waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil shaygu u waxyooday waa un qur-aankaas kariimka ah, qur-aankaas u waxyood. waxaa la yidhaahdaa malagul waxyiyo rususha ayuu wuxuu u keenaa waxyiga oo qur-aanka ayuu u keenaa markaas. ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, fa awxaa ilaahay wuu u waxyooday ilaa cabdihi, fa awxaa alla wuu u waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisii oo jibriil ahaa buu ilaahay u waxyooda, maa awxaa maa shay ayuu u waxyooda awxaa jibriil uu u waxyooday ilaa muxammadin sala allahu calayhi wasalam.
maa kadaba alfu'aadu buu yidhi ilaah.